سؤال كلية إسويدي يا سوريا أدي بي شيعة يا أدي يا تاريخ ذا أخر رجال بيتك أدي بي رجال بيتك عنتك قلي علويين تأمن النصيرية هذا كتلسة أهل السنة باب إيسي لبب قل يكنتم كن أو سنئة بعد دور سنة جده لجد لي 7 مليون كبدن بابنان كيا الله أو قرحة يبرف كباب إنا يا أهل السنة مجالوين كودي دلك على السماء وريا أودي بين نصيرية علوية يا دلك أودي بي وحأودي بالرجال بيتك أودي بي حزب الله تا يا لبنان يا أودي بي أو كوهيا رجال بيتك أودي بي العراق هنا جم فوقين مردو بي أهيده يا جعنجليي أو جعنجليي شيعة سو مريكان كي يتحلفني يصير رجال بيتك ما هاي مردو بي أهيده يمن أو هذا وجودا بيصير حوثيين تا يا قرب سينا يا إيران يا رجال بيتك أو هوستك لتشيرا وحبيان عيارة اللجوء بدلي كل ذلك هل سؤال يسويدي ولقى ممق شيء هل ننو الشيعية أيا انت الله قاضي با غونتنامو لو خيره ممقش غونتنامو ولقى نين شيعية ملقي هل أرور كميدا الشيعة ملقي لي ليسك أرقاقحيسada ma xusuusantahay ma garanaysa حزب الله تهن لبنان كدغالمaya إسرائيل buu la dagaalamaya la leeyahay in lagu daro ururada argagixisada waxa ka dagaalamaya waa reer Yurub yaan lagu darin bay leeyihiin war ma lagu daro ilka abees hoos ka xiriirsan waa la soogeeyay anaga marka in la khaldo oo filin iyo riwaayad beena naloo dhigay oo makhduuciin noqonay wax saxsan ma ciyaarta inta ay leegtahay meeshay ka socoto waynu fahmaynaa hadaynu aqli iyo garaad iyo garasho leenahay ninkii aan lahayna wuxuu u baahan yahay wax badan inuu dib ugu noqdo taariikhda hadda dib u raacdana taariikhda muslimiinta dib u akhriyo kutubta taariikhda ma jiro gaalo dhul islaam qabsatay illa shiica garab u ahayd miisaalka ugu weyn waxa weeye qarnigii 7aad markii Baghdad ay qabsadeen tataarku markay qabsadeen ninka soo galiyay oo hoos kala socday oo waday nin raafidi oo la dhihi jiray ibn al-alqami buu ahaa ikhwaanu safa aaway siraaci ka dhaxeeya muslimiintii reer Yurub xaggay Iiraan ka gashay xaggaysa shiica ka gashay gaaladay garab u haayeen taariikhda in la akhriyaa loo baahan tan joogtiya tii tagtayba sidaas daraadeed habay yaraatee shiica gaala inaga celinayso raafida gaala la dagaalamaysa adeer warkaasi waa waraan jirin waa masraxiye iyo film la isu dhigayo waay maanta halistaasa ina haysata waxa aad looga xumaado qalbigeena inuu ka gubta ay tahay maalin dhaweyd caasimadaha Soomaalida deegaamadeeda mid kamid ah oo afkaartan rag wato Soomaaliya ay joogeen oo soo galeen ayaa maxfal dhan oo la wada joogo nin kamida intuu istaagay buu cay ula istaagay hooyadeen Aisha ummul muuminiin المبرأة من فوق 7 سماوات Soomaali baana dhageysanaysa xaaskii nabiga uu jeclaa dhowr iyo 10 aayadood ilaahay ku soo dajiyay bariyeelideeda iyo iyada sababteeda ayaa mid Soomaaliya intuu soo istaagu caayaya calashaan shiicadan rabin Muawiya ibn Abi Sufyan ayaa maxfalada hortooda laga caayaya waxaan aad uga xumahay warbaahinta iyo telefishinada Soomaalida qaar kamida inay tamkiininayaan oo ay keenayaan oo ummadda hor keenayaan dad mabaadi'da iyo afkaarta rumaysan ummadii oo aqoonina si fudud ay wax u gelinayaan oo qarsoodi ah waxaan doonayaa inaan digniinta bixiyo khatar baa ina haysata mashaakishii ina haysatay kuwa ugu waaweyn bayna kamid tahay fikirka shiiciga ina soo galay dhulkeenni soo galay khatarta uu soo waday ka dambaysa ka daran mas'alada iyada in lagu baraarugo oo si wada jir ah looga wada hortago ayaa laga marmaan ah oo laazim ah ummaduna inay ku baraarugto arinta iyada sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin